maadaama aan markaan fadhinay waxoogaa aan faahfaahinay waxaan samaynaynaa hadda wax khalada iyo waxa midda saxda inaan sheegno qofka musalliga ee tukanaya wuxuu marka koobaadba qiblada inuu qaabilo ayaa lagama maarmaan oo qiblada u jeedsado waa lagama maarmaan markii uu qurkaasi qiblada uu u jeedsado arinta labaad wuxuu samaysan doonaa sutra ayuu samaysanayaa sutradan insha Allah ta'ala waan tusinaynaa waa waajib sutrada in la samaysto sunna ma aha sida raajixa waajib weeyaan marka qofku inuu meel banaan iskaga tukado ma aha maadaama rasuulku yiri ha u tukanin illa sutra inay ku hortaa lama ogiyaha tukanin ayuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam kadib qofku salaadii ayuu galayaa iyadoo salaada gelideedana uu rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wasallam uu ku tilmaamay inay Allahu akbar ay ka bilaabato assalaamu alaykumna looga baxo marka wixii ka horeeyo u salli farad hebel in la yiraahdo iyaduna waa arin aan sugnayn oo daliil aan lahayn oo bidca noqonaya marka salaada Allahu akbar ayaa laga bilaabaa qofku marka Allahu akbar leeyahay gacmaha uu rabo inuu qaado waxa laga maarmaan inuu qofku fahmo meesha gacmaha la gaarsiinayo iyo xilliga Allahu akbarta la sameeyo iyo meesha la dhigayo taasiba muhiim ayay noqonaysaa gacmaha qaadidooda iyo Allahu akbarta saddex waj ayaa ku soo arooray in loo sameeyo inuu qofku gacmaha iyo Allahu akbarta hal mar wada qaado sida isagoo ah oo qibladii midlan u sii jeeda ayaa ruuxu wuxuu leeyahay hal mar buu Allahu akbarta iyo gacmihii isla qaadaya Allahu akbar inuu yiraahdo ruuxi waxaa kaloo soo aroortay Allahu akbarta in la hormariyo oo gacmuhu ka dambeeyaan waa sidee midlan Allahu akbar kadibna sidaas oo kale uu qaado waxaa kaloo soo aroortay inuu gacmuhu horeeyaan oo Allahu akbartu ay dambayso iyaduna waa sidan Allahu akbar saddexda kayfiyo ayaa sax ah in loo qofku uu sameyn karaa meesha la gaarsiinaya gacmaha laba wajba iyadana ku soo arooray labada garab in la gaarsiiyo iyo in waxoogaa kor loo qaado dhagaha furuucdoodan hoose la gaarsiiyo iyadoo on la taabanaynin dhagaha in la taabtaayo iyadu waa min dawaa'il waswasa leeyahay shaytaanka ayaaba ka faa'iideysto qofku inuu sida u taabto waxba sharti ma ee waxa la rabaa oo kaliyeeta inuu qofku labadan meelood ama halkaas uu gaarsiinaya oo gacmaha labada garab ayaa lagu aadiyaa ama waxa la sameeynaya inuu koray hor u yar qaado halka dhagaha qaybtooda hoose uu gaarsiiyo labadaasna waa labada meelood ee gacmaha la gaarsiinayo weeyaan طيب dadka qaar ba marka waxay sameeyaan inay gacmaha sidaan oo kale iska dhahaan Allahu akbar sidaas oo kale ay maartay gacmihi iska dhahaan qaar kale waxa suuragal ah inay sidaas oo kale u qaadaan qaar kale waxa suuragal ah inay labada dhagood ay geliyaan gacmaha qaybtooda hore qaar kale waxa suuragal ah inaynanba ay waxba hadlina iska aamusaan gacmaha halkan iska saartaan intaas oo dhan waxay noqonaysaa qaladaadka jira طيب markuu qofku gacmihii qaado ama halkaan ha ku aadiyo ama waxoogaa kor ha u qaado xagee buu dhigayaa meeshuu dhigayaa waa xabadka ruuxa halkiisa laabta ah ayuu gacmaha saarayaa meel kale lama saarayo kaliyahana la qabsan maayo dhinacna la isoo qaban maayo mana la sii deynayo kullu waxa ku soo aroor dhuuntana la gelin maayo intaas oo dhan waxay noqonayaan ahadiista waxa ku soo aroor dhan wada daciif waxa saxa in la saaro laabta ruux inuu saaro طيب qaabka uu u saarayo iyadana laba kayfiya soo aroortay inuu gacanta midig gacanta bidix uu saa u dul saaro waana sidoo rasuulku yiri anbiyada haddaan nahay macaashir al-anbiyaa war-rusul waxaana la amray inaanu gacanta midig gacanta bidix dul saaro marka inuu qofku saa u saaro iyadoo saarida qayb leeyahay faraha qaybtooda hore iyo rusqiga oo halkan kala baxa iyo wax yar oo saacid kala dhudhunka ah saddexda qaybood isagoo qayb ka saaraya inuu ruuxu soo saaro waa kayfiyad sax ah waxa kale oo sax ah inuu qofku qabto oo sida uu qabto iyaduna waa kayfiyad sax ah waxaan iyadu sax ahayn in la isku daro qabasho iyo saarid dadka qaar ba waxay waxaan sameeynaa farta suulka iyo faryarada ayaanu ku qabanaynaa saddexda dhaxana waan dul dhigaynaa kayfiyadaas marka khalad ayay noqonaysaa marka waxa sax ah ya imma in la qabto oo ruux sida uu qabto ya imma inuu saaro labada kayfiyana waa qaabka loo saarayo meesha la dhigayana waad baratay waa laabta oo kaliya meesha la gaarsiinayana waad baratay ama waa labada garab
ama waxa weeyaan labada dhagood qaybtooda hoose intaas ayaan uga degaynaa insha allahu tacaala qaybta qofku markii uu marka mana saaraya baan nidhi laa keliyana qabsan maayo meel kalena aadin maayo halkan oo keliya ayaa la rabaa inuu qabto rukuucda markuu ruuxu soo gaadho iyadana qaabka loo rukuucayo waxay noqonaysaa inuu qofku horta gacmihii sidii cala alwujuuhi almutaqadima saddexdii kayfiye ee noo hormaray oo ahaa allahu akbartu inay horayso ama allahu akbartu iyo hal mar isla qaado ama inay dambayso saddexdii mid ka mida ayuu qofku yuu samaynayaa ayib marka faatixadii buu aqriyey suurad buu aqriyey kadib muxuu samaynayaa kor buu allahu akbar kadib ayuu ruuxii rukuucaya waxaa la rabaa qofka dhabarkiisu inuu sinaado iyadoo la rabo qoortiisa hore iyo miskihiisu inay siman yihiin lama ogola inuu qofku sidaa u yara taagnaado oo sidaa maalan qofku qaarka hore kor u taaga lama ogola waxaa kaloo la ogola inuu qofku madaxa hoos gashado uu hoostaa u foorariyana lama ogola waxaa la rabaa sidaa inuu qofku uu u siman yahay ilaa haddii xitaa biyo lagu dul shubo ama weel la dul saaro weelkaasi uuna dhacaynin baa loogu talagalay markuu qofku sidaas yahay marka lama ogola inaad gacmaha xaggeed dhigaysaa iyaga naftoodii rukuucda waxaad saaraysaa labadaa jilib ayaad gacmihii saaranaysaa adigoo sidaa u qabanaya oo gacmihii waxoogaa faraha kala qaadaya farihii inaad saa isugu uruuriso lama ogola inaad saa u kala geysana ma aha waxoogaa iyagoo iswada garab jooga inaad sidaa u qabataa la rabaa sidii qof qabanaya oo kale labadii jilib inaad noqoto saas ugu cuskato oo qofku uu hayo ayaa laga mamnuuc dadka qaar baa meelahan dhudhumada iska qabsada qaar kale waxaa laga yaabaa inay meelahan oo kale iska qabsadaan marka meehe halkaas oo kale ayaa la saarayaa qofku markii uu ka tooso ictidaal baa la yidhaahdaa wuxuu geynayaa gacmaha meeshii hore ayuu geynayaa ama labadii garab ha geeyo ama labada dhagood salkooda ha gaadhsiiyo marka qofku intuu iska tooso gacmihiisiina siday iska yihiin lama ogola waa inaad gacmihii kor u qaaddo ood celiso ood meeshoodii haddana geyso marka xilliga ictidaalka la yidhaahdo oo qofku uu taagan yahay waxaa la rabaa xubin walba inuu booskiisii hore ku laabto uu qofku si toosa u istaago waxaa la diidan yahay inuu qofkii rukuucsanaa oo saas oo kale ahaa oo haddana korta oo haddana kadib isla markiiba uu soo laabto taasina waa qalad waxa weeye inuu qofku laabto ilaa xubin walba meeshiisii hore oo kale uu ku sugnaado halkiisii uu taagnaadayo waa lagama maarmaan kadib markuu qofkaasi ictidaalkii saa u istaago adkaartiisii akhriyo ayuu soo rukuucayaa haddana waxaan jeedaa wuu soo sujuudayaa sujuuddii buu marka u imaanayaa waxaa weeye qaabkee marka loo dhigayaa sujuudda ma labada jilib ayaan dhulka marka horeba saarayaa mise labada gacmood ayaa la saarayaa waa masale khilaaf culimmadu ay geliyaan la sida raajixa waxa weeye labada gacmood ayaa lagu bilaabaya qofku isagoo sidaa u taagan oo ictidaalkii soo dhameeyey ayuu soo sujuudayaa allahu marka gacmihii baa hormar gacmaha ayaa waxay ka horeynayaan labada jilib gacmihii marka meeshuu dhigaayo naftooda la rabaa in la xuso halkaan oo kale inaad dhigto ood labada jilib iska garab dhigato ma aha dadka qaar baa saas oo kale intay isaga dhigtaan ayaa halkaa gacmuhu yaalaan markay sujuudayaan dadka qaar baa intay halkaa yidhaahaan bay saas oo kale u dhigayaan waxaasoo dhan marka dadka qaar baa sidan iska ah marka waxaa la rabaa labada gacmood ama labadii garab ee markii hore la taagnaa ay ku aadanaayeen inay ku aadanaayeen saas oo kale ama waxaa la rabaa inay waxoogaa yar ka horeeyaan oo dhagaha ay maaragtay meeshoodii ku aadanaadaan marka sidaasaa waxaa kusoo baxaysa rukuuc qofku waa inuu marka isfoorariyo oo ay soo baxdo si saxa inuu qofku markaa xilligaa uu u sujuudsan yahay marka uu qofku sujuuddaa labada midda hore dhammaysto wuu laabanayaa wuxuu u laabanayaa sidaas oo kale sidii atixiyaadkii dhaxa oo kale isagoo u fadhinaya ayuu laabanayaa oo lugtiisa bidix ee ku fariisanaya midda midigna ay u taagan tahay jalsatul istiraaxa ayaa layidhaha markuu sidaa ugu laabto ayuu haddana soo laabanayaa tii kalena sidaa markuu sujuudo xilliguu kacayo ruuxu haddana fadhigii aan hadda tilmaannay buu ku noqonayaa oo saas oo kale ayuu u laabanaya labada sujuudood dhexdooda waxaa bannaan inuu qofku ku fadhiisto labadiisa lugood oo kale matala labadaas lugood inuu sidaa labada sujuudood dhexdooda waa suuragal inuu ruux ugu fadhiisto waa suuragal matalan labada sujuudood oo kale inuu sidaa u fadhiisto waa suuragaloo iyagii uu ku fadhiisto waxaa kaloo suuragala inaad sidaa u goglato iyaduna waa suuragal laakiin waxaan la ogolayn xilligaas yacni labadaas ubaa soo aroortay
midaan marka hadda aan qaabka u fadhiyo dad baa atixiyaadka dhexe sidaa u fadhiista marka taasi waa khalad atixiyaadka dhexe sidaa looma fadhiisto sidaan unbaa soo aroortay in loo fadhiisto waa midka dhexe midka dambe markaan gaadhnana isaga dhinaca dhulka la dhiganayaa oo sidaas ayuu ruux u fadhiisan labadiisa lugoodna xagga ayay ka wada baxayaan ayib markii qofku sujuudi uu soo dhammaysto wuu soo laabanayaa kadibna ragcaddii kale ayuu iyadana sidaa u tukanayaa ragcaddii afraadna qaabkaasoo kale iyaduna ayay ku imanaysaa waxyaabaha muhimka oo baraarujinta u baahan waxa weeye salaadu waxay u baahan tahay khushuuc in la khushuuco taasna rasuulku wuxuu yihi sal alla alay slam qofku ha fiiriyo meesha uu ku sujuudayo ha fiiriyo markaad tukanayso eed saa u taagan tahay ma aha inaad midigta saa u fiiriso ma aha inaad bidix fiiriso ma aha inaad kor fiiriso ma aha inaad hoos fiiriso qofku wuxuu fiirinaya meeshuu ku sujuudi lahaa ha fiiriyo hal mar baa laga soo reebaa oo waxa weeye atixiyaadka marka lagu jiro atixiyaadka markuu qofku sidaa u fadhiyo atixiyaadka dhexe lugta saasaa loo gogladaa sidaas markuu ruux u fadhiyo wuxuu fiirinayaa fartiisa ayuu fiirinayaa rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam way ka sugnaatay farta in sidaa loo dhaqaajiyo wuxuuna yidhi rasuulku sal alla alay slam shaydaanka ayaa lagu cayriya oo shaydaanka aad bay ugu daran tahay weliba shadiid ayay culimmadu qaar u dhaqaajin jireen marka fartaasuu fiirinaya markuu ruuxu atixiyaadka uu ku jiro amaa inta kale oo dhan wuxuu fiirini meesha uu ku sujuudi lahaa labada atixiyaad waxay ku kala duwan yihiin qaabka fadhiga loo fadhiisto ka hore sidaana loo fadhiistaa hadda aan u fadhino oo waxa weeye qofku inuu lugtiisaa goglado ka dambe laakiin sinta ayaa dhulka la dhigtaa oo saasaa loo fadhiisanayaa qofku isaga dhan inuu fadhiisto ayib waxaa kaloo ku kala duwan yihiin qaabka loo qabanayo atixiyaadka hore sidaan gacantani saasay u saaran tahay lugta bidix tan midig mar walba iyadu waa sidaan rasuulka waxaa kasoo laba kayfa in sidaas xalqa ahaan loo laabo oo farta dhaxada iyo suulka sidaa la isu saaro oo xalqada daloolka ay saa u ahaadaan waxaa kaloo sugan in sidaa loo laabo iyaga dhan intii lasoo laabo gacmaha suulkana sidaa loo dul saaro mid walbana qaabkaanay u fidnaanaysaa gacantana waad dhaqaajin kartaa wax dhibaato ahaa male farta inaad dhaqaajiso amaa gacanta bidix atixiyaadka hore sidaanay u dul saaraanaysaa sidaa ayay isaga saaraan halkaasayna oolaysaa laakiin atixiyaadka dambe wuxuu uga duwan yahay iyadu qaabka ayay noqonaysaa oo qofku wuu qabanayaa sidii kaanahu qaabil isagoo hayo oo kale ayay noqonaysaa oo saasuu u qabanayaa marka kadib salaamtii markuu ruuxu soo gaadho oo atixiyaadkii uu dhammeeyo atixiyaadkii u dambeeyey qaabkan oo kale midda kale oo muhimka waxa weeye salaad kasta oo 2 ragcadood ah ama subax ha noqoto ama sunna ha noqoto salaada 2 ragcadood ah waxaa loo fadhiistaa qaabkana loo fadhiistaayo atixiyaadka dhaxasaad u fadhiisanaysa baa loo fadhiistaa laakiin salaad kasta oo iyadoo 2 ragcadood ka badan iyada qaabkan ayaa loo fadhiistaa oo sinta ayaa dhulka la dhigtaa kadib qofku markuu soo gaadho assalaamu calaykum waraxmatullah afar kayfiyo ayaa sugan iyadana oo rasuulka ka sugnaatay sala allahu calayhi waalihi wasalam inuu yidhaahdo dhanka midig assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhanka bidixna assalaamu calaykum waraxmatullah inuu yidhaahdo waa arrin sugan wey waxaa kale oo sugan assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah oo isku mid ah iyo waxaa sugan assalaamu calaykum waraxmatullah dhanka bidixna assalaamu calaykum oo keliya waxaa kaloo ka sugan rasuulka hal mar keliya in lagu koobto adiga oo dhan xagga hore oon fiirin wax yarna dhanka midig ee u yarjeedsanaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saas oo kale ama assalaamu calaykum oo kale intaad dhahdo wax yar dhinacaasun isu gedido marka afartaa kayfina waa sida rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam salaada rasuulka uga sugnaatay